Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I just want to share with you guys and justice for Sheikh Mohammed Hassan. Sheikh Mohammed Hassan oo lagu dilay Ohio. aad wada ogtihiin the people and dadka ayaa protester u sameynaya Ohio. Of course anagana waxa waa loo qalbigan kala soconaa different states aan kala joognaa maadaama stateyo kala duwan aan joogno oona isku dhaweyn haddana meeshaan waxa weeyaan live stream oo qays aan raxmad channelkooda laga soo daayay gotta give credit for them waxaan leenahay anagana our heart we with you guys great man naga wada baxay we give you our support and Somali community haddaan nahay meel kastaan joogno waa idin la soconaa guys ilaahayna ha soo qabto qofkii dhibkan ka dambeeyay. One thing has to be clear, do not take my videos and make me something I am not. Okay, don't say that I am somebody who I am not, or wife or shit stuff. Don't say that shit for me. Thank you. We have to guys watch and see the protesters. People are marching. dadka soconaya waxay u soconayaan xaqi in la helo sheeqan dadkii dilay dadkii ka dambeeyay dhibaatadan dadkii geystay maxaa la yiraahdaa those who committed the crime and maxaa la yiraahdaa in la keeno waxa dhibkan geystay waxay rabaan caawin support waxa weeyaan Ohio police Ohio governor of qof walba weydiinayaan in sheeqan xaqiisi loo soo dhiraandhiriyo loo soo bixiyo loo keeno. You guys and let's watch. Long video, very long video, but we're not gonna go there. واحد ربنا يعمل عدالة مع الشيخ حسن أروح على أبوه شيء وراح أصوم على gobolka Ohio ku nool waxay raadinayaan cadaalad waxay marayaan downtown Omaha Omaha downtown Ohio Columbus ayaa dadkani ku lugeynayaan waxay ugu lugeynayaan inay helaan cadaaladii xaqi qofkii dilay ama wixii ka dambeeyay dilkan dhibaatadan dadkii geystay ummad badan ayaa socotay isugu jirta Soomaali cadaan madow qof kasta community waa bulsho soo ogid bulshadii deganeyd Ohio ama dadkii Soomaalidii saaxiibadii fareenkii familygii kulli ayaa socda oo waxay weydiinayaan maxaa la yiraahdaa cadaalad bay weydiinayaan ilaa iyo hadda lama hayo qofkii shiiqa dilay waxay raadinayaan in la helo cadaaladii in la helo xaqi in loo istaago oo la raadiyo oo booliska uu dabagalo macnaha qofkii ama dadkii ka dambeeyay dhibaatadan waa dhaawac weyn oo soo gaaray community Somali meel kasta oo joogto ayaa la weydiinayaa inay helaan dadkan sababtoo ah ilaa hadda lama hayo wax tuhuna xitaa ma hayaan if they have suspicious wax suspected hayaan way keeni lahaayeen ilaa hadda ma hayaan so I hope kiiskani inuu noqon call case because call case haduu noqdo case call iska dhiga is still fresh dadkani waxay u protest gareynayaan u soconayaan wadadan dheer qabowgan ay u soconayaan inay helaan xaqi sheeqan in aan casekan boolisku ka fariisanin inay dabagalaan inay raadiyaan inta raadki qoyan yahay wali raadki waa qoyan yahay soo ma ogid laakiin haddii boolisku isdhigto dadkuna ay isdhigtaan oo aysan mudaharaadin oo aysan kicinin oo aysan
aan soo dhiginin xadaaradooda siday uga xun yihiin siday u doonayaan cadaaladda haddaysan soo dhiginin dee waa laga fariisanayaa qof wuxuu noqonayaa sheekha communitygiisiiba uu ka fariistay waxa weeyaan speakero badan baa meeshan ku jira oo ka hadlaya caruurtiisa xitaa soo galaysa at last oo ka hadlaysa maxaa la yidhaahdaa dad cadaana ka hadlaya dad shiiqa saaxiibadiisii fareenkiisii ummadan baa ka hadlaysa so familigiisi including marka waxaan leenahay justice for sheekh maxamed xasan justice for sheekh maxamed xasan waa inaan cadaaladiisa helnaa waa inaan cadaalada helnaa haddaan nahay community Somali meel kasta oon joogno no matter which state we are waxaan rabnaa cadaaladii maxaa la yiraahdaa sheekhan waan iska gudbiya because maanta dhan waa la soconayaa qof baa hadlaya maanta dhan waa la soconaya waxaa idin tusayaa macnaha sida loogu soo banaan baxay sheekhan sida dadka ay uga hadlayaan sida ay u rabaan inay helaan cadaaladii waxaa lasoo sabood garanayaa familiga caruurtii waxaa lasoo soomaalida ayadaa isa sabood garanaysa sababtoo ah maalin kasta haddii qofna laka dilo ama qofka muhiimka noo ah ama waxbartay ama waxa weeyaan dadka communityga usoo istaagay nalaka dilo ama xataa yuusan usoo istaagin oo ciyaal shakaraha iska noqdo meelaha iska taagtaagan maalin kasta in lagu ogaarsado ma aha waxaan u baahanahay justice dadkani waxay rabaan cadaaladii sheekhan ayay doonayaan they said we need a justice for Sheikh Mohammed Hassan. Our city is witnessing such tragedy. Our city has seen enough of such violence, and it's time we put an end to such atrocities and life-lost tragedies. We request our city's leadership, our law enforcement, and our public safety to bring waxay codsanayaan leaderka dadka meesha xukumo oo community high such a governor and kuwa booliska kuwa public waxaa la jiray safety waxaasoo dhan ayay waxay weydiinayaan cadaalad inuu sheekho helo waxay leeyihiin waxaan magacyadu watirinayaa our leaders blah blah waxaasoo dhan leeyahay marka waxay rabaan waxay dadkaas weydiinayaan because the government waa ninka magaalada xulkuma such a district such a mayors such a maxaa la yiraahdaa you know FBI or CI or police or you know those are higher people and dadkaas madaxda sarsare ayaa waxa la weydiinaya sheekhan cadaalad in la helo xaqiisi in la helo in la dabagalo inay raadiyaan haddii ay xooga saaraan ay raadiyaan oo isku taxallujiyaan xaqiiqdii way keeni karaan laakiin hey you never know what's going on. Justice. Don't let any stone be unturned in their efforts to resolve the case of Imam Muhammad. The family of the Dr. Muhammad and all those whom we have lost into the senseless hate and homicide over the years. Familiga Sheikh Mohammed oo ka dhintay aabahood also waxay doonayaan xaq aabahood in la helo waxay dilay wayna soo boodgareynayaan familigii ayay waxay tusayaan inay garab taagan yihiin inay la safan yihiin maxaa la yiraahdaa oo ay hiil iyo hoob ula taagan yihiin sababtoo ah waxay haddii aysan familiga kaligiis waxba ma qaban karo waa inay dadku soo baxaan oo isku yimaadaan because sheekhu ummadoo dhan buuba ka dhaxeeyay soo waxaa garata maaha marka waa in iyaguna garab istaagaan family sheekh faraanusu leeyahay saaxiibo leeyahay dad uu la soo shaqeynayo leeyahay community caawinayo leeyahay cadaan iyo madowbu intaas la shaqeynayo la dhiilgareynayo waxa weeyaan waa kuwana iyaguna maanta waa soo istaageen oo kaas qof wanaagsan oo waxa weeyaan communitygiisa ka soo muuqday communityyaasha kalena ku lug lahaa marka waxa weeyaan sheekhu kama dhimanin ama kama teganin
n familigiisa anaga dhan ayuu naga wada tegay sababtoo maalin kasta qofkayga wax bartay oo educatedka oo na caawinaya oo noo istaagay waxa weeyaan haddii nala kala baxo waa wareer waa dhibaato maxaan qaban karnaa maxay caamadu qaban kartaa caamo wax ma qaban karta macnaha haddaadan educated ahayn oo educationku waa midka kaliya ood ku dagaalantid ujeeda waxa aad soo baratay oo adiguna naftaadana ku caawinaysa ummadana aad ku caawinaysid waa really important outstanding great man ayuu ahaa ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka sii jannada raxmaan laha geeyo dabadiisna nama wada fidneeyo waxa weeyaan you all have our support. The Muslim community stands united with all our American brothers and sisters, locally and nationally, for support and solidarity for Muslim community waxa weeyaan united waxay noqdeen hal mid ayay noqdeen waxayna weydiinayaan justice ayay weydiinayaan wax cadaalad ayay weydiinayaan Muslim community oo dhan oo muslimka qaasatan even Soomaalida waxaan weydiinaynaa cadaalad ayaan u weydiinaynaa sheekha wixii dilay ama wixii ka dambeeyay waa in la keeno soo xagarata maaha macnaha wallahi waxa weeyaan hadallo aad iyo aad xadaaradooda u leh very strong wuxuu isticmaalayaa words hadallo aad iyo aad culus ayuu isticmaalayaa waana hadallada loo baahan yahay maanta kaleetana waxa weeyaan hil iyo ho ayuu familigu u baahan yahay garab istaag it's not only family we are Somali community we need supporting each other inaan iscaawino inaan isgarab istaagno inaan isku muujino inaan nahay dad bulsho maxaa la yiraahdaa meel ka muuqato community strong oo waxa weeyaan xaqooda soo dhacsan kara weydiisan kara cadaalad ama yani pointigooda muujin karo ninkan wuxuu leeyahay Somali I don't think Somali yahay waxa weeyaan wuxuu leeyahay waa nin muslina anyway oo weydiinaya xaqii sheekhan la soo dhiciyo dadkii dilay in la keeno waxa weeyaan waa support waa kula jirnaa anaga qalbiyadan kala jirnaa hadkan kala soconaa insha Allah justice for everyone. Free on each other's keepers. That was rooted in community and love. And the reason why I find myself in politics at all is because I got sick of trying to convince people to do the right thing, to understand the experiences that we're having at the community level, and just wanted people who would do it, who would feel what we feel. And I know that today we are all feeling that tremendous amount of sadness and fear and anxiety and hurt. People are hurt. waxaa la dareemayaa dadku inay sad yihiin xun qalbiyadooda xun yihiin dhaawac soo gaaray maxaa la dhahaa cadaalad ay rabaan dadkan ka xun yihiin wixii dhacay ay dareemayaan gabadhan muslimiya Soomaaliya waxta maqaan aniga yani ayadana waa gabar hadlaysa oo ka gubanaysa ama ka damqatay oo macnaha community-ga kamid tahay community waa bulsho isku tagtay oo isku timid weeyaan community waxa la yiraahdo waa bulsho sarristo isku timid waxa weeyaan dadkii oo haaya deganaa dadkii yani ka damqaday waxaan ay kamid tahay oo weydiinaya same macnuhu waa cajaladan waa dheerta waa 3 hours oo ramajina marka anigu kuma sii dheeraanaya cajaladan qof walba wuu hadlayaa wuxuu ka hadlayaa same thing hal wax in baa laga hadlayaa oo ah in cadaaladii la helo sheekhan wixii dilay So my only message really today, and I feel I don't know too much dadka lacagana waddanka u dhashay oo muslimiin ah iyo kuwa muslimiin
intaas aan uga baxayaa kaabe waxa weeyaan waa ujeedaa cadaan madow dadkii wadanka u dhashay dadkii waageyniga ahaa sida anaga oo kale kulli dadkani way wada hadlayaan hal wax baana laga hadlayaa hal xabuna pointigu yahay in la helo cadaaladii in la helo xaqii in la helo xaquuqdii in la helo wixii ka dambeeya shiiqan wixii dilay in la helo insha allah I hope in la helo wixii dilay oo dhibaatadan ka dambeeyay justice for Sheikh Xasan baan leeyahay cadaalada ilaahay idinka in la keeno wixii sheekhan dilay oo ka dambeeyay hadalka iska soo duuduub dadkan waxay u soo kaceen isugu yimaadeen meesha la isugu yimid in la helo wixii dilay sheekhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasaan uga baxayaa hadalkaanayto support guys caawiya sheekha idinkuna community-ga waa inay raadisaa wixii sheekha dilay too